qofkiyo hantidii haysta oo caafimaad qaba hunguri qoysna uu ku jiro adna aan guursanayn laga yaabaa inuu dee baydhbaydhaa dhici karaysa waajib waa inuu guursado mar bay kugu noqonaysaa inaad guursato xaaraam oo waa goorma adigoo aan caafimaadkaaguna wacnayn dhaqaalahaaguna wacnayn dee inanta aad soo hoydo ee kuu soo hoyata xag caafimaadna ma fiicnid xag dhaqaalana ma haysid miyaad far fadhiisanaysaan oo sheekaynaysaan maxaad ku kordhinaysaa marka waxa weeyaan markaasna iyaduna lugooyo dee looma baahna waxaa shareecadu tilmaamaysaa markaad guursanayso ikhtiyaar zawja saalixa soomaalidu waxay tidhahdaa inankaagu mar buu hiilkaaga baahan yahay oo markaad hooyadii baadi doonayso inaad doonto qof dumara oo diin iyo akhlaaq leh inaad raadiso inanta aad guursanayso aad xulato inaad xulato inan taran leh oo reerkoodu ay taran leeyihiin inay tahay inaad doontid in waxaa ka mida waxyaabahaad ku xulanayso qof turaal iyo naxariis leh oo carruurta u turaysa oo qoyska iyo odaygeeda u turaysa xagga reerkaa laga sahminaya iyo aqalka iyo xaafadooda ayaa laga sahminaya waxaad ku dadaalaysaa marka ugu horraysa inaad inan hesho hadda carmalka laftiisu meelo badan buu kaga wacan yahay guurka ogow inanta guurkeeda shareecadu ay tilmaanto ay kaga fadli badan tahay wadda wakhtigaan ii saamaxayne 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ba la tirin karayo nusuustu ay tilmaantay ay kaga fadli badan tahay rasuulku markuu ku yidhi anas war miyaad guursatay haa ma inan baad guursatay mase carmal baan guursaday hallaa tasawajta maxaad u guursan weyday inan tulaacibuka wa tulaacibuhaa wa tudaaxikuka wa tudaaxikuhaa midaad la qosasho oo kula qosasho oo kula dheesho la dheesho rasuulka ilaahay oo aabbahay wax ragaani wuu dhalay sideed habloodna waa ka tegey dee waxaan doonayaa inan reer soo dhaqday oo hablaha u fidhi taqaana oo koolkoolin taqaana oo isku wadi taqaana inan haddaanu keenaan iyaga waxba dhaamin maxay taraysaa buu yidhi rasuulku waa u duceeyey baaraka allahu fiik khayr allah kus meelo badan bay markaa carmalku kaga wacan tahay inanta laakiin inanta in la horraysiiyana way ku jirtaa meesha waxyaabaha lagu dooranayo waxaa ka mid ah oo shareecadu ay tilmaantay ninka laftiisu in ninka laftiisu uu diin iyo akhlaaq leeyahay inantu markay ninka soo ardaadhigo ama guur u soo bandhigo waa inay iska egtaa diintiisa iyo akhlaaqdiisa idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqah fazawijuuh haddii uu idin soo ardaadhigo qofaad diintiisa iyo akhlaaqdiisa u bogtaan u guuriya wailaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid aw kabiir haddaydin sidaa yeelin fitno weyn baa dhacaysa halkaa micno weyn baa ku jira eeg rasuulku wuxuu kala qaaday addiinu waalkhuluq diinta iyo akhlaaqda micno weyn baa ku jira oo waxaa laga yaabaa inanka ku soo ardaadhigaya inantaada doonaya inuu yahay nin deeqsiya aftahana oo geesiya oo xishood badan oo khiyaara inuu yahay oo akhlaaq wanaagsan laakiin salaadaba ma tukado laakiin diintaba ma ogola waa mulxid oo diinta wax badan buu ka soo hor jeedaa dhadhan ma leh dee xog ku tarmaysa meel buu ka arradan yahay oo qof qayb ka qaawan jirhkiisa ama qofkani ardaaga kuu soo dhigay inantaada ku soo ardaa dhigay waa qof salaaddii tukanaya sunno iyo farad qur-aankii xafidsan qaa'imuleyl ah oo nin khayr qaba ah toosan oo hagaagsan laakiin waa bakhayl koob shaaha ma shubayo laakiin waa dilaah gacantaba ma dhigayo laakiin waa af xun yahay labada hadday qof wada hadlaan waa caytamaya waxba kuu reebi maayo dee kaasi meel buu isna ka arradan yahay waa in qofku akhlaaqduna wacan tahay diintuna wacan tahay labadaasaa la ysku eegaya haddii sidaa aan la yeelin dhib badan baa dhacaya buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalam